asxaabta waridi salaamaya meel kastoo dunida ka joogtaano bal ku soo dhawaada ciyaaraha iyo warkii ugu dambeeyay wargeysyada ay qorayaan iyadoo ay ciyaaro xiiso badan maanta jiraan haddaba Chelsea maxaa laga filayaa maalinka Manchester maxaa laga filayaa derbiga Arsenal iyo Liverpool ay maxaa Man United batlaadka ciyaaraya maxaa laga filayaa Lionel Messi oo baldoorkii soo bandhigaya iyo waxaan soo qaadan doonaa warar kale oo ku saabsan warbixinadii ugu dambeeyay Manchester iyo suuqeeda iyo dhammaan kooxuhu kale Yurub subscribe-ka noo saar saxab channel-ka cusub halku ugu jiray sheerta iyo like time sidoo kale saxab kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya Askunicom macmiil haddii aad tahay arday daneenaya wax ku barto wadanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo dhawow shirkadda Askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garowe Gaalkacyo Beledweyne Jowhar Baydhabo iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askunicom ka dhigo Askunicom wehelkaaga Turkiga وكل عاونا عيار حساب بدن با لقى عيار يا قارد يورو رونتيو يا يدو هبينكو لفيل عيارو كوحة إنجليز كتطبعات كنا واتطبعات عياريدو شبيلوك ولا جنا سنة لكن هوريالا دي بقى الهوس يال دحجري إنجليز كوكلا بري عيارو بدن سكده بعياري والله مريا بل وكو جاريا بريمير ليج كل يدو مظاهرات كنا ميسي وسعونا يو حتى يورد كلوب أياها ذاتك جدا بي بلدور كهالله يسقوا الشجعي إنه يسقوا أدو عروضي محمد صلاح in qiimaynta meesha uu ka galay oo Maxamed Salah uu toddobaad ka galay oo laga sara mariyo xataa Cristiano Ronaldo Ronaldo waa lagu dhagayaa ka wariya ilaan macnaha Ronaldo gadaashi buu ku dhameystay mugtay Maxamed Salah runtii Jordan Klopp arikas aad buu uga carooday waxaanu sheegay inuu la yaabay in Maxamed Salah Al-Warabi la geeyo kaalintii Ballon d'Or-ka waana ninka xilli ciyaareedkan 17 gool aliyo 18 ciyaar u ciyaaray laakiin waad ogtahay waxyaabo hadda qabsanayo xagga dambe wax ku qaadanaya Ballon d'Or xiga yaa isagu si sanadkan rikoorkiisu kooweed ma fiicnayn كل مرة قاعد بوركا ويا بي محمد صلاح ماشي لقريدي ميدا قالوا ولا يا دad أول مرة ميس كسيني سوى تكسين كرتامرو معنا مرة بيسقى يا هاني كلا سينجري ولا أول مرة لكن هذوس السنة كان بلوندوسكي بلندور كان كقول يسن ولا يه ولقي سنة مهري دارا يعني نقاس نيكلا وقلبي ولا أيوة يدو توني كروس أي كوريس أو يكوري سيدو كلا رك بدنو كلا بحر إيكر كاسيس أي كوريين مظاهرات بدنو ميسي كانوا مسكسر عنا يكلب وكي قدام بيعها ayaa Guardiola uu ka hadlay Guardiola wad ogtahay Messi uu qabayo waa wiilkiisii isagu sidoo ka soo tagay la hadda Champions League ma qaadin ya asagu Champions League ma qaadi karo ilaa Messi laan Raheem Sterling iyo Champions League ma qaadi karo markii ugu dambeeyay Champions League soo qaaday wuxuu ku qaaday Messi حتى برمج باللوجي وحقوق بسكري وعي هذا بجارديل وقتها يبجعل كوق أبو ميسي وحولا يا متقانا وعباد بوغلت كهي سابوري عد كغلط مال هاللي الميسي ولا يهي يا ميسي من عد كغلط مال ولا يروتيو مار جارديل ويديلري واربابا وكور ميسي قبل مرين تمحوغي وميانو قل من وحولا يهي مردي كرنو عدالة درويان قبل مرين تكو قوليست ميسي ولا محايل يسوي أدو في عيني يا لينا الميسي أدو في عيني هذا كرواني كيلو ويدي كور بالري عياريانكي وفعنا الصور تولي قال معناه يا ميسي وكان نمبر 9 نمبر 8 نمبر 7 نمبر 1 نمبر ورمت كاستبا اسغوي مeel kasto garoon kasto looga ciyaar isaga ku fiican buuri marka wuxuu leeyahay Messi waxba yaa cadaalad dariyaan lagu talaamiru Ballon d'Or ku qaaday waa Ballon d'Or caadil bulay runtiyo maxay leeyahay Messi fiican yahay hadaba Lionel Messi waxa lagu wadaa maalinta maanta ay arbacada inuu Messi soo bandhigo Ballon d'Or-yadiisa inkastoo Messi uu yaani xanuun u seegay tababarkii kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain uuna ciyaari doon ciyaarta nice ay la ciyaarayaan habeenka laakiin Lionel Messi ayaa lagu wada leeyahay in taageerayaasha Bardes Baransi jooga uu soo bandhigo maalinta arbacada Ballon d'Or-kiisi ilaa hadda Ballon d'Or-kii feega wad haystaan yaani todobada Ballon d'Or oo yaani qiyaas wad haystaan bari waa laga yaabaa inuu 6 Ballon d'Or oo kale iyo kan hal mar soo safaa laga yaabaa ya waarwa ka waana waale marka jamaahiirtu ay soo bandhigi doona bal maanta Ballon d'Or-kiisi sida la filayna kaliya Ballon d'Or-ka ma soo bandhigi doona sida la filayo jawaankii Ballon d'Or kale uu keenaya meesho 7 ayuu saak dhigayaa marka uu 6 isku agsafay moogtahay todoba ay noqonaysaa marka runtii maalintu waa maalinkii Messi uu soo bandhigi lahaa Ballon d'Or-diisii oo arinku todobaadkan fiican buu ku jira iyo reer Barcelona iyo reer Messi oo qabowba ya Cristiano Ronaldo runtii ninka kan aad buu kaga dheeraaday laakiin waan arki doonaa wuxuu waa Benoni lagama hor dhici karaye markii ugu dambeysay Cristiano Ronaldo runtii uu kaga dhameystay Ballon d'Or-ka meel ka sii xagay saddexda sare 2010kii bay wajiga Ronaldo saan buu ahaa anu dhalinyar buu ahaa hadda mujida ilaa iyo saan uu ka noqdayo ninkan waa yeelka ah wuu noqday laakiin waa yeel ciidamadan waa yeel ciidamadiisa la haysan kari wayaan ya number wayaan daadu 36 sano jir uu yahay laakiin muhiimadan ka hadlay Ronaldo waa yeel waa iyo maahan Ronaldo abal marintan Ballon d'Or-ka sanadka meeshii ugu xumeed buu ka galay
oo Ronaldo saddexda sare Ballon d'Or laga waayo wax cusub weeyaan markaas wuxuu ka mid ahaan jiray 1 2 3 in Ronaldo saddexda sare laga waayo waa markii ugu horeysay sida dhacaysay weeyaan tan iyo sanadii 2010kii markaasna Ronaldo wajigiisa sida kan buu ahaa nin dhalinyar buu ahaa ya argab buu ahaa maantana waxa weeyaan odagu waa maqaarow ayuu noqday runtii odagu waa la soo hayaa marka waa ka Jack Grealish ayaa sheegay haddii uu habeenka caawa ka dhaliyo kooxda kubadda cagta Aston Villa goal inaanu ku dabaaldegi doono waxa uu sheegay in maalin dib ugu laaban doono 100 milyan laha kan kooxdiisii Aston Villa ee laga soo qaatay waxa uu sheegay haddaan caawa ka dhaliyo leeyahay kuma dabaaldegi doono 100 milyan bay Man City kuwan kaga soo gateen ninka kan Newcastle ay kaga yimaadeen Aston Villa kaga yimaaday laba gool ayuu laakiin Man City u dhaliyay 15 ciyaar uu ciyaaray ka war ma shaqayste wariya murqa weyne wariya midkan Calviska waa weynow laba murqa weyn ku yaal muta halkan Cotomil ku fadhiya kaaska Cotomil ku fadhiya war kotaki lagu qas war murqa weynow boqolka lagu qasaaray baa tahay maxaa yeelay waa ninka 15 ciyaar laba gool ay weeyaan ma shaqaysta waa baro la jiido yaqaan macna bariyaad waa dhaawacna kulay habeenkii uu soo laabta la filaya wuxuu leeyahay dan kuwa ka dhaliy gool kuma dabaaldegayo waanu ku soo laaban doono maalin kooxdeeda taayo hore marka ani waxaan leeyahay ninkan Axmed Malan baan leeyahay boqol khasaare buu muuqanayaa 15 ciyaar laba gool ka dhaliyay waan arki doonaa waxaad ma aragtay Brunogiisa wajida maanta dhan war goolka agtiisa waxa la rabaa inaad baahi ku noqoto baa la rabaa ganto garaacdo shuudo caawisa la rabaa adi ama De Bruyne ama goolkan garaac labadaas wax ka dhaxay ma laha Bruno la jijiidayo Neymar ku jifo weydii isaga ma taqaan wax ku qabsan la De Bruyne la jijiidayo wax taraye Jadon Sancho iyo dhamaan ciyaartoygan ka yaabnay todobaadka Premier League waxyaabo badan ayaanu ka baranay Premier League kulmadii ugu dambeeyay todobaadka isbuuc bartamaha todobaadka kana waa la ciyaarayo caawa la ciyaarayo khamiista waa la ciyaaraya ya kollay marka isbuuc kale oo Premier League baa lagu jiraayo isbuucan ciyaarana soo aragnay iragan ka soo yaabno waxa kamid ah Jadon Sancho inuu bilaabay waayiisi ugu fiicnaa ee Man United isagoo hadda labadii ciyaar ugu dambeeyay Man United gool u soo dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay Premier League ka dhaliyay kooxda Blow oo uu doomariyay ninka la yiraahdo Master Mandy waxa la leeyahay Jadon Sancho ayaa la filaya wali isbuucan inuu Arsenal ku shaqeeyo baa la filaya waxa la leeyahay Jordan oo burhantiisa ay ka cad ugu dambeeytii oo waxyaabaha toodkan soo baranay waxyaabaha toodkan sidoo kale aan soo baranay waxa kamid ah Aubameyang inuu haddana dib u noqday zero isaga oo zero noqday baa ka dhigtay Arsenal sanadkii la soo dhaafay inay Cali Waraabi ku dhamaysato oo Real ku meel xun kaga dhamaysto waxaan la xasuustaa sanadkii la soo dhaafay bartamii November inuu hal gool dhaliyay January-na sanadkii la soo dhaafay bartameedii inuu hal gool u dhaliyay runtii oo yaani ninka goolkii baa ka guuraya waxaad arkaysaa hadda Aubameyang laba penalty buu lumiyay seasonkan walibana gool albaabka taagan maalin geeska ka mariyay oo uu khasaariyay waxa uu leeyahay Aubameyang wali waxay arkayaan taageerayaasha Aubameyang ki zeerada ah marka Aubameyang wali wuxuu u muuqanayaa fishil la mudooyinka ugu dambeeyay marka Aubameyang oo aan kicin Arsenal waa ka ninka kulmadooyin la ciyaaray indhaha taagaya marka Berig Aubameyang shabairta Arsenal waxay rajeynayaan inuu ku soo laabto Aubameyang la yaqaanay maalaxas waa damay labadoo biro soo roonaaday haddana waa feeray Aubameyang oo feerina waa laga bartay Premier League Jorginho in khaladaadkiisa waa kulmada weyn ay sii soconayaan waa la arkayaa kolley waa ninkii laga dafay todobaadka goolkii uu dhaliyay ninka lagu magacaabo Jadon Sancho runtii ninka kan wadankiisa iyo kooxdiisa Champions League buu ka caawiyay Euro laakiin lixdii bilood ugu dambeeyay waxyaabo cabsi leh ayuu sameeyay runtii yani laga naxo ayuu sameeyay isagoo lumiyay laba rigoor oo muhiim ah World Cup isreebkiisa oo Switzerland ku khasaariyay taas oo Talyaani ka dhigtay maanta inay booskooda ku adduunka xaqiijiso waayaan oo Talyaani hadda play-off balaayo u lugta u geliyay sidoo kalena waa kii Euro wargorgorasha khasaariyay oo penalty haddaan uu Bukayo Saka khasaarin xataa waa loo yaabi lahaa حتى waxa ninka lagu haystaa ka hor Euro-ga xataa Jorginho waxa lagu eedeeyay xataa goolka Smith Rowe sanadkii la soo dhaafay London Derby Chelsea looga badinay in isagu qaladkeedu lahaa marka waxa uu leeyahay حتى بلدورك اللي سوى هبينكي حاليها وحلو مالينيا إني هو سوري تخلدات كجود بيعيارو كسميني نيكان فجستها دييغو جوتا كل ديك ونقد دونا ديك جوجين بو نقد دونا بالليهي هدي وكتجا حتى داي بحان نمكان أفريقيان كا محمد صلاح إيو ماني إيو نينكا كلا اللي النبي كيتا هدي كوب أفريقيا فونيشني آذان ninkii buuxilha booskiisa waa kan Diego Jota ayaa isbuuc laba gool soo dhaliyay ciyaarta Southampton waa nin aad u qatar badan runtii iyadoo Liverpool ay haysto weerarka caanka ah Salah Mane Firmino laakiin Jota ayaa noqday geesiga gagada Anfield baryahan waana ninka dhalinayay goolal ciyaarihii ugu dambeeyay ay soo ciyaarayeen isbuucii afarta ay la soo dhaafay min Atletico Madrid min Arsenal min Manchester United marka waxa uu leeyahay ninkan
la-aanta maxamed iyo ninka booska buuxin lahaa oo kolob uu ku baxsan lahaa ninkan baa loo arkayaa weliba waxyaabahan ka barnay ciyaaro waxaa kamid ah Pep Guardiola haddii aysan Man City ciyaartoy ka dhaawacan sida Grealish iyo De Bruyne oo covid ku maqan iyo Foden ay usoo laabo waayaan inkastoo dad way soo laabanayaan leeyahay Foden iyo Grealish haddii ciyaartoy ugu fiican u heli waayaan leeyahay maalmaha soo aadan Pep Guardiola waa loo yaabi doonaa inkastoo City barafka lagu celi waayay todobaadkan xataa ay si fiican barafka ugu kor ciyaareen arrinkaas maqaari wataan ka war barafka Bernardo joojinaa ka war ani waa yaabay laakiin City waxay ciyaari doontaa bishii waxa weeyaan wareerka weeyaan iyadoo maalin iska haystay kaliya Raheem Sterling iyo Jesus iyo Mahrez ragoodii waa dhaawacay badankoodu iyadoo Palmer iyo ilmo yar oo kale ay keedka ugu jireen laakiin City kolley waxa ay hadda gali doontaa ciyaaro adag 7 ciyaar Premier League bay ku ciyaari doontaa 4 isbuuc oo soo aadan waana tartankooda Premier League haday difaacan lahayn hadii kale marka City waxay u baahan tahay in ciyaartooyda ugu muhiimsan sida Foden iyo Grealish iyo Kevin iyo isu soo hesho hadii kale waa loo yaabaa marka waa Premier League soo laabanay iyadoo ay Chelsea habeen ku ciyaari doonto waxaana la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Watford waa nimankii Manchester soo dabagediyay laakiin uu la tujil ciyaar magalay malaynayaa hawshaas Thomas ma yeeli doono malaynayaa Manchester iyo qoliyo iska jiran weeyaan ayaan tano maalin basi weeyaani kolba Tuchel ma yeeli doono bana sarka ayaan malaynayaa nimankan Marwa loo waayay waxaan malaynayaa Cabdi Ismaaciil Saar maana duurkiina gal yiraahdo waa laga yaabaa oo garaaco hadaba Lukaku ayaa laga yaabaa ama ay tahay ciyaartii ugu horeysay safkooda ugu soo bilowday kooxda Chelsea muddo dheer kadib uu ninkan garoonka dhaawac ugu maqnaayo maalud wax yar laga ciyaarsiiyay habeenku waxa la filayay inay ku ciyaarto Bruno Werner iyo Lukaku iyo Monti wali Werner waa ka bagalaska wax ragga wax khasaariya ardada Raheem Sterling ka bagalaaskooda weeyaan todobaadkan waxa marka lagu eedeeyo Jamie Vardy Hassan Bank oo Chelsea ciyaar juul madqana warkanu kama caafimaad ma yakul khasaarinta ya Alonso iyo Jorginho Loftus-Cheek iyo James baa ciyaaraya Rudiger Christensen Asbalqueta iyo Mendy waa habeenku sida la filayo inay ku ciyaarto todobaadka kan waxa ciyaaraya kooxda kubadda cagta Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Man United baa ciyaaraya waa habeenka Khamiista Jimcaha ay soo galayso hadaba Paul Scholes wuxuu rabaa in Man United san loo ciyaarsiyo hadaba sidoo Scholes u soo filaha Manchester habeenka Khamiista sida ma yahan leed wuxuu leeyahay Ronaldo keedka waan ka soo kicilaa dib ayaan safkooda ugu soo bilaabi lahayo waxaan weer kulama taanisiin lahaa buu leeyahay Rush iyo Jadon Sancho Fernandes iyo Fred iyo Tumini baa ka dambeey lahaa Telles iyo Eric Bailly Lindelof Wan-Bissaka iyo Master Degay waa ragga ay Arsenal ka horgeey lahaayeen waa habkii Scholes ku ciyaarsiin lahaa ya mid kale Barcelona ciyaarta adag ay Bayern Munich kula ciyaari doonto gurigeeda waxa la tilmaamayaa in albaabada loo xiri doono sabab ku aadan kiisas waaweyn oo laga helay COVID-19 gudaha Jarmalka ayaa keentay in garoomada hadda taageerayaasha laga ilaaliyo isugu imaanaya sidaas kulanka waxa la xaqiijiyay in lagu ciyaari doono taageero laan xilli Barca ay doonayso inay ku soo badiso Allianz Arena oo ayna weligeed ku soo badin xataa birigay Messi haysteen kuban soo badin ay birigan ay rabaan mataqana oo ay ilmo yar yar wataan inay ku nasiibsan halka ku soo badiyaan marka waana Barcelona ay rajeynayaan hadalka ku soo badiyaan inay u soo gudbaan laakiin hadii lagu garaaco Benfica ay guuleysato nimankan Khamiis League ay noqonayaan ama Europa League ay noqonayaan markii ugu horeysay iyo 2004 waqti dheer Mohamed Salahna waxa uu sheegay in Talyaanigu uu ka ciyaaray xirfadiisu badbaadisay oo caawisay isagu wuxuu ku wareeray kooxda Chelsea laakiin markuu Talyaanigu aaday uu ku soo shidmay halkaas ugu ciyaaraya kooxaha Roma iyo Fiorentina Ingiriiska Chelsea uu ciyaaray 6 bilood uu la joogay kadib way direen Roma ayuu la soo joogay iyo Fiorentina waxa uu Mohamed uu sheegaa ilaa hadan uu ku celi todobaadkan in waayihiisa Talyaaniga uu ku soo koray wuxuu leeyahay kubadda cagta Talyaaniga ay caawisay buu leeyahay runtii ya waqtigii xasuus badan baan ku leeyahay Roma iyo Florence ya runtii halkaas soo dhaweyn baan ka helay buu leeyahay runtii ya markan Italy aan aaday buu leeyahay runtii kubadeeda cagta halka bay ka xoogowday buu leeyahay aad bay halka ugu kortay waa meesha wax ku soo noqday buu leeyahay sidoo kale waxaan rabaa in ka faa'iideysto inuu mahad celiyo taageerayaashiidii Roma iyo Fiorentina ma ilaawi karo leeyahay waxa ay sameeyeen midda kale Juventus waxa laga yaabaa Brian Baritano ku socda suuqooda kala iibsiga ciyaartooyga sanadii ugu dambeeyay heshiisyo waaweyn oo ay ku jirtay Cristiano Ronaldo heshiiskiisii kula wareegeen ciyaartooyga kale ay kala ahaayeen maxaardaay Danilo iyo Pjanic iyo Arthur iyo Cancelo iyo ciyaartooyga la soo wareegayeen sanadii ugu dambeeyay lacago been abuur bay ka sheegayeen oo qiimo been abuura ay ka sheegayeen todobaadkan hataa xafiisyadu waa la baaray iyaga iyo Milan waxa la leeyahay hadii Juventus dambiga lagu helo been abuurka waxa la feeyaa hataa in heerkoos loo celiyo Serie B mar kale hadana Calciopoli kale wariyaha Fajisto weedka tuuga xarifiin baatiin hadda koorna Calciopoli lagu helay oo garsoorayaashu ay la hadli jireen ciyaaruhu ka hor markaaba Serie B loo celiyay oo yaani koobkii laga aruuriyay markaas Juventus wax u dagaalama la waayay Ibrahimovic iyo ragii meesha ka kala carareen ya meesha waayay dad uu haray meesha Buffon iyo Camoranesi iyo ragba meesha joogay
iyo Trezeguet iyo rag baa meesha dagaalamay George Chiellini iyo dadkaas legend way ka yaa meesha ka noqdeen beriga Serie B Juventus loo celiyay haddana waxa la leeyahay Juventus haddii kiiskan ku cadaado waxa la rajeynayaa Juventus in loo celiyo heerka hoose iyadoo koobkii ugu dambeeyay qaadeen Serie A laga qaadi doono Ajusta waa kooxda ugu koob qaadida badan kubadda cagta Talyaaniga waxaana haystaan 36 horyaal marka oo horyaal bay haystaan runtii Serie A marka nimankan marka la weer lagu yahay lagu leeyahay Real Madrid waxa la sheegay in ay rajeynayso in ay Antonio Rudiger kala wareegto kooxda Chelsea balse Thomas Tuchel wali isku dayay lagu leeyahay ninkan inuu kooxda ku qanciyo in uu yani ay ninkan sii cishtaan war ayaa sheegaya in Roberto Mancini uu si shaqo noqon doono tababaraha kooxda Man United xaga soo socda tababaraha rasmiga micnaha tababaraha hadda Man United loo dhibay waa kumeel gaar 6 bilood soo aadin tababar noqonaya kadibna 2 sano la tariim noqonaya kooxdu balse Roberto Mancini bay doonayaan bal leeyahay xaga soo socdo hadda tababarayaashii doonayaan qayb ka noqdo bal leeyahay Mancini xilli uu isagu soo ahaa tababari Man City u qaaday horyaalka Premier League yaabka lahaa sanadii 2012 iyo Aguero goolkiisa xilli dambe Man United koobka ka soo celiyay war marka ninka inkastoo City uu mataqaana koob u qaaday la guuleystay Man United baa doonaysa baa leeyahay tababar rasmi ka dhigta waa ninka rasmi ka dhigtaan waa ninka Euro la qaaday Talyaaniga waa nin weyn ninka ka runtiyo Man United toosi kara baa isleeyahay runtiyo Man City weligeed horyal qaadin waqti dheerna koob ugu dambeysay waa ninka uu afjaray marka si shock bay Man United ku doonayaan baa leeyahay xaga soo socda tababareedii ka dhigtaan ragga candidate ka musharaxiinta ayuu ninkan ku jiraa asxaabtayna wad galiyo